صفوان بن أمية أي عمير بن وهب نك اللي ورجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho u xiro u qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan kala xiray Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankaygiiba iga xidhan intu saban oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaca buu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمكاس كتور تورا إن فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجيني قارن مر اللي أمرك عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواكا جيني قارن قرت كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي إنه أجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو سعودي خير ما سعودي markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi Allah Umar ibn Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiya xaadu timid buu ka yiri waxaanu imiday inankaygi oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu qabaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badar iyadoo tan wadano Saudiga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xiray ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adigiya Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aanu dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intoon tagaan Muhammad aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabuu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tiri baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtana ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumeyn adigana ilaahayna waa rumeyn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma
حتى سكايزا بس إلهي سكاكت اليكوك تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب امرأة أبي لهب أيها النبي نوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بيوتمد وهل كان فرديا رسولكنا واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى هاي أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسا نستوى ماذا حن بشكسين لها بيتري مركز كان نقطه أبو بكر نبي يا رسول الله ما ينكو أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنه هيبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمر كي لهيب وحكو أركا دكتو وحكو مغلا ما دكتو أمر كي لهيب هو بانتاين مقشو لوك تادو إنه سعوت إلهي أمر كي سيو باهنتا خالق وإلهي marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kasto muslima laga raba ilaahay inuu dhabu garto tasarrufaadka caalamka ilaahay bas kale marka shayga ugu horeeya bini aadanka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisa oo dhaba noqo خلاصة القرآن مركا علماء كورمين خلاصة الأديان وحلي وحي الدين سمادا كسود دكتي أردن خلاصة دي وحا لقد القرآن كريم كا قرآن كريم كي بالله سو خلاصة سورة الفاتحة خلاصة دي قرآن لقد سورة الفاتحة يلا خلاصة لبدا عوض علماء سكو كانان إياك نعبد وإياك نستعين خلاص قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلهي جل وعلا واك قرآن كلها صلاة وانو قيبية أنجي أدونك أياك لا قيب سني وصلاة وسورة الفاتحة مقعيق ويان سورة الفاتحة صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة 7 المثاني بالليلة سورة داس وسورة ونبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقان لكم توراة لكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدة كم جرتب رسولكم يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان يغني وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا كسو أرتي إياك نعبد وإياك نستعين وأمركم أضنك أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركات ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضنك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضنك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركات ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضنك يجيب أماني مالك يوم الدين مركات ترادنا مجدني عبدي أضنك يجيب ويني إياك نعبد وإياك نستعين مركات ترادنا إلهي بال هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضنك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركات تري حمدني عبدي إلهي بالأضنك يبقى حمدي الرحمن الرحيم مركات ترادنا الرحمن والله الرحمة ديسو أدونك أنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدين ويان الرحيم أن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدقوا ويان أثنى علي عبدي أدونك وي أماني بإلهي إليهي مالك يوم الدين مركات ترادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلد إسكالها يوم مركات ترادنا وحو إلهي إليهي مجدني عبدي أدونك ويني إياك نعبد وإياك نستعين مركات ترادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا وهجاج أدقون أي عبد وأدونك يجي نبي إنقو أنا جنا كلمة هاي جرجار كاجي يقدا سدان دونا ييل سدان دونا سن أنا كويلي سرت نلاش هالكابي كجرتا دو فكر هذين
qaxootiha ka raadin hay-ad loo shaqo tagana ha ka raadin waddankeena keena uga shaqo fiican waa ka hay-ad u shaqo taga hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadday qalinjabiyeenoo hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore hay-addu ka qaadatay yaa miskiin cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumuu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ريسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلصيو سن السارة إسلام كأقص عطا وسد عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبيل نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما الدولي الله إيمانكو قلبكو دولي الله هلكو دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ما هم عرب كدولي الله من ما أدوية لدافسن كرماها ومن قلبكو إيمانكو فريستي وين إلهي كو تعلق سن هو يرى بقرك ما كلها تاين النصرانية دا سوا قلي boqortooyadeedana kala barkeed baan ku siinay markaas uu qoslay wuxuu boqortooyadaada oo dhameestiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelayn buu kaydi wallahi ma facaltu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelayo buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa دوابا نيحدنا هاي بيقول هذا يدل سر ونيحدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكون إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكيني هلان وإلهي قرقار كيس الله بلن قادر عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحبوه ما أركان وحال الله السماية مركا بغركي أمر وحو كبحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonay nabi yiraahdeen markaas la qabto labadii nin basada loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxal loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dhariga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoon haysano ka ooyaya buu ka yiri naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu ka yiri boqorkii baa yiri kan dilgiis wax noo tari maaye haska sii deyno waayay sii daaya ma kula tahay buu ka yiri madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii deyne markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada sagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu hadii muslimiinta ila xidhan aadii sii deynaysid haa waan ka dhunkan hadii kala ka dhunkan maayo buu ku yiri markaas uu waxaga iga dhunko markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida ragga uu sii deynaya Soomaaliya waa ka dhunkan ila bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixinayna عجيب أصحاب الرسول رئيس وقالين عمر بن الخطاب صود ويي إنه قال ماذا حكى صود كذا أيا وش شيء جايب على يلو رجل الله السعودية عمر كويري عبد الله بن حذافة هدون كانوا هالسلام إنه هالصود وين وايو قال ماذا حكى صود كذا إنك أنا هبل دبد وبحي
hebel hee dibadda u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo waa iskugu toostay. gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan. gaalada dhulkooga inaad tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan. iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin. Umar baa yidhi balukaadii ha warayste sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkataa? wuxuu yidhi iyakaa ku soo daayay buu yidhi. si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Cabdillaahi bnu Xudaafata wa ana abda'u bidaalika buu yidhi. qof kasta oo muslima waxaa xaq ku abuu yidhi Umar in maaragtana Cabdillaahi bnu Xudaafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yidhi. anigana ka bilaabayo. ilaahay bay ku xidhnaayeen, islaamnimaday ku xidhnaayeen. addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay. sidii ilaahay doonaya markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay. siday doonayeen. marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa. aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ee quluubtoodu taacadda ilaahay iyo dikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihuu. ilaahay baa inoo nasteexaynaya, ilaahay baa inoo yeedhaya, ilaahay baa inoo khayr miiraya. walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allaahi qiila. ilaahay baa ku warramaayo ku leh war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo, aniga macrifadeedu qalbigiinu ku xasilaya. qalbigu salaadu ku raaxaystaa, qalbigu qur-aanku ku raaxaystaa, qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa, qalbigu taacadda ilaahay buu ku raaxaystaa. nacam, nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa odhan jiray 5 min dawaa'i alqalbi, 5 ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa. tilaawat alqur'aani bitadabbur, qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakur iyo qiyaam alleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado. wa tadarruc cinda asaxar iyo waqti asaxar, xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacala lala munaajoodo. wa khalaa'u lbadni iyo calooshaadoo mar walba badhnaata. waa kasratu siyaam bay culimmadu leeyihiin, inuu qofku soonkiisu bato. wa mujaalasatu saalixiin, dadka war wanaagsano lala fadhiisto. 5taasay culimmadu yidhahdeen qalbigay dawaysaa. tilaawat alqur'aani bitadabbur. inaga qur-aanku maasha allah waan iska akhriyaynaa, tadabburkii baa inaga maqan. asxaabta rasuulka radia allaahu canhum laga yaabaa hal aayadoo qur-aana sida habeenka ugu celcelinayaan buu waagu u baryaayeen. wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun. sufyaan athawri raximahullah aayaddaa qur-aanku habeenkii markuu salaatileylkii xidhay markuu gaadhay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun, waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame. hadduu lahaa khayr baan wataa, may khayrkiisii maaha, arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa. salaadda waa lagu badbaadayaa laa shaka, laakiin muuminku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado salaad iyo soonkiisii eegi maaye ilaahay raxmaddiisa buu maanta eegaya qofka muuminku. ilaahu raxmaddaadi unbuu leeyahay. aayaddan qur-aanku waagu ugu bariyey. abi bakr sidiiq radia allaahu canhu markuu nebigeennu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nebiga lagu yidhi salaaddii baa taagan nebi allow. markaasuu nebigu yidhi abubakar u sheega ummadda salaadda ha ka bixiye. caaisha radia allaahu canha oo ag taagnayd nebiga ayaa ku tidhi inna abaa bakrin rajulun raqiiqun. abubakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan. idaa qara'a alqur'aana halabahu lbukaa, hadduu qur-aanka akhriyana oohintiisa ayaa qur-aanka ka qaalib noqota. wa hada cumar alfaaruuq radia allaahu canhu salaata leylkii habeenkii markuu maskiidka nebiga soo galay wuxuu arkay inan yar oo suuradda tuur ku tukanaya qiyaama leylkii. qur-aankiisii buu dhegaystay. markuu gaadhay yarkii yaraa inna cadaaba rabbika la waaqic, cadaabka rabbigaa waa kii dhici doona weeyaan. aayadda cumar markii uu gaadhayna dhulkuu ku dhacay. cumar binu khadaab intoo la qaaday ayaa gurigiisii la geeyey.
بالكو دبو حنوسنا حنون قيس ماشو كجي مدينة لما أوجين مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود هبينكي مركو حاسكي سأكسر حدا بيتري سداس أوجل جلنجرة سداس هبينك أوجل جلنجرة سداس مركز يكتر ورمحل قال جلن مات بكتا مات سيحتي ده مركز ورجل عبسده حصوصت أنا حصوصنا النار جهنم أيا هرددي الراحة ديك قاضي ورجلي يخافون قرآن كي آخرين يكو لكن تدبر بيكو آخرين تفكر بيكو آخرين لقى يا هل آيات القرآن هبين كادن كسو جد النبي عليه الصلاة والسلام وكي أبي بلال بوي مدي صلاة دي مركي قاعدي يا رسول الله صلاة دي بلغا سوغيا والنبي يقول للمدى كدادتي مالين تاس قرقيس انتي دافتي لابتي سي قويسي هل كي وجه قولك كوهين وي قويسي مرقاسو النبي يقول يا بلال حليت ولا آياتها القرآن يقول صدقي ويل لمن قرأها ولم يتفكر إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحلي يقول صدقي النبي يقول نكا آياتها أخريا إن أنت تدبرون أن تفكرين كاسو خساري ورسولك يقول تدبر صدح عمل markaad hayso hadaad qalbigaaga khushuucad ka weyday bay culimadu yiraahdeen qalbigaagaasi uu dhisay heerada soo dhaweeyay quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid hadii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbigaas uu bukaayo qalbi xanuunsan ilaahay alla urtagin قيام الليل وسماء الصالحين إن هبينك إلا كعو الله ينسي كل جن كي كهلا بدس كي صفات ونكس النجلة الله لين نسوي سدين يا مي هذا الكانوا حنوجه الله يا إني أنا نقول شيء ما دين بندونا يا إيمانك وحنوجه الله إيمانك إنه يزيد دونا يا صلاة وحنوجه الله يا صلاة حقيقة إلهي نوسيان دونا يا صفاتك ونكس وحنوجه الله يا صفاتك إلهي نوسيان دونا يا والله أمان فريس دينا وعدي أنا وأنا الكاو فريس نفسي دينا وعدي قيام الليل حسن البصري رحمه الله من أسمر أبوها ولكن وجهك سنور كبحايو مركز سألقول يا شيخ يا أبا سعيد بالقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد واسدي بالقول دتك واتكنور وينتهي وعلى ساعدها أي هردان أيان إلهي لم يناجود أبو لانكم مضوانا سوجي يقولون النور ها ساعدها دتك أي هردان كعو ولو لا برك على النقطة لا برك عتكو ولو ركعت وتر إذا أنا كنت ضروري وتر هذا دبوا دقو مركز شرفاء الناس دتك مال قبيلنا ذا يدتك مدح ذا يدتك تجارته أي دلين هي وجهاء الناس بإمجر مجلس كيسة وعلى قول يا حسن يا أيها الإمام dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yiri madaxda oo dhan baa ku imanaysa wuxuu yiri waxay haystaan ma ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yiri waxay haystaan baan macna adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintan u jeestay jannadan u diyaar garoobaya naar baan ka cabsanaya ilaahay xaqiisan u dhaqaaqay marka waxay haystaan markaan faraha uga qaaday waxaan haystaan iyaga u baahday guud والتضرع عند السحر مؤمنك waxa laga rabaa habeenkii saacadaha waqti saxarka inaad ilaahay la munaajaat لا maxay munaajaat ya Allah albaab kasta u xirmay albaabkaaga furan ilaahu naxariistaadaan u baahana waa saacadaha ilaahay jalla wa ala uu nabigu sheegay samada adduunyadu yimaada nuzulan kama yaliqu bi jalalihi markaasuu ilaahay oranaya ayaa wax weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe haddaan saacadaha kacna ka waramo ilaahay barino soo baahi ma lihin saacadahaas مناجات هبن
ayuu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu qiyaamkii uu bilaabay ayuu nabigu laba aayadood oo kaliya sidoo ugu celcelinayay ayuu waagu ugu dilaacay rasuulka in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim labada aayadood aayadna waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabi ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa taala ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa alayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood ilaahay ay ka dhigteen caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni deedna waa ka ilaahay weydiini doona orani doona yaa ciisa ibn maryama a anta qulta linnaas ittakhiduni wa ummi ilaahayni min duuni illah nabi ciisa yaa ciisa hatta yaa nabi allah la oran maayo yaa rasuulullah la oran maayo yaa ruuxullah la oran maayo ciisa ibn maryama war yaa ciisa ina maryama baa la oran doona maada ku yiri reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigto naabuda maada ku soo yiri قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم